halkan waa qolkii uu deganaa allaha u naxariistay jarnaal galaal isla markaana laba kamida uu halkan ku dilay ka hor inta uusan ku geeriyoonin gabadheeda guur aroos ayadoo hotelkaas Afrika ay deganayeen oo meesha isku guursadeen sidii marka meedkii meesha la keenay ku arkay dhawaan ayuu arooskoodu dhacay hase yeeshee markii ay gudaha hotelka u galeen ayay halkaasi ku toogteen waxaana ka waramaya aabaha dhalay gabadhan oo ka sheekeynaya qaabkii argagaxa lahaa ee loo toogtay gabadhiisa oo dhawaan aroos ahayd iyada iyo saygeedii sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaalo laga soo duubay halkii uu ku dagaalamay General Galaal oo la sheegay inta uusan dhiman ka hor in halkaasi uu ku toogtay laba dagaalyahano oo ka tirsan al-shabaab muuqaal ayaan iyana idinkaga haynaa daawadayaal inta aan u guda galin xogaha iyo macluumaadka sirta ee halkaasi laga soo guriyay faldan marka hore muuqaalka la garay si uu baahowna gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo janaalka subscribe talay galab ay ahayd markii weerar ku bilowday qarax la beegsaday Hotel Africa kadibna ay gudaha u galeen dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab ase yeeshee waxa dheeraaday dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo sidoo kale dagaalyahanada al-shabaab kaas oo ka socday gudaha Hotel Africa haddaba daawadayaal halkaasi waxa laga soo wariyay dhacdooyin badan oo argagax leh taas oo ay ka mid tahay in halkaasi lagu toogtay lamaane dhawaan aqalgal ku ahaa halkaasi oo 7 ku jiray iyagoo lagu toogtay qolkii ay ku jireen waxa ka waramay arintaas aabaha dhalay gabadha la dilay oo ka sheekeynaya markii ugu wardambeysay waxyaabihii ay taleefanka uga sheegeen sidii ay xaaladeedu ahayd bal adaba aynu isla daawano intaan idin la wadaagin muuqaalka laga soo duubay qolkii General Galaal oo ku sugnaa halkaas oo ay ku toogteen al-shabaab kadib dagaal dhaxmaray oo halkaasi kaga dilay laba dagaalyahan hadaba bal marka hore muuqaalka aabaha aynu isla daawano magacaygu waa Cali Umar Daraare marka waxaan ka hadlayaa accidentigii uu dhacay shalay 10 saac galabnimo ahayd oo ku dhinteen gabadheediyo wiilkayga gabadheeda guur aroos ayadoo hotelkaas Afrika ay deganayeen oo meesha isku guursadeen markay waxa dhacday 4 galabnimo anoo jiifo 4 barkii anoo jiifo ayaa telefoon yimi ayaga soo direen waxay igu yiraahdeen baaba qarax baa ka dhacay hotel Afrika weeyaan marka waxaana qarax sidee ah wallahi ma aqaanayto laakiin qarax weyn ah dhacay marka anoo maqlaayo samaacada saas waa ayaa qaraxaas dhacay marka waxaan isku dayay marka inaan ordo aan laftirkeena meesha galo aan ogaado waxa meesha ka jiraan meeshan tagnay ani iyo xaaskeyga iyo wiilkeyga daan tagnay meesha waxa dhacday marka 4 galabnimo 5 wax dhiman ayaa sheekada meesha isku dhacday marka xabadiya meesha isdhaafsaday iyo qaraxii waa Hotel Afrika مثلا ماشي ولو قلي واي أنا وأنا قلي ويني كوده إلا أنا وحنا أردبي أنا ديار وأنا نفسدي إلى القورو عم يشغل وادعوي سمرك مركب وحنا جوجنا ماشي إلا هبينكي لحصة أنا وح قبر أيوه واحد انتي واحد نور أنا وربقوا هايني لحصة هبينكي مركي لقاري ماشي حوجا حبدي يراتي قرحي وماشي يرادي وحي مركا نولا oo soconay bukaan socodka way baxeen dhaawici waa la qaaday marka maxaa haray marka waxay dhintay haray marka gabadheedu waxaan ka waayay dadkii bukaan socodka ahaa ama dadkii dhaawaca waa ka waayay marka waxa isugay ayadii ninkeedii markaan ka waayay waxa isugay waxay ahayd marka meedkii sida ku heshaa marka meedkii waxay ugu noqday marka inaan arko saacadahaas yar oo leedahay sug baa lagu gelina meedku waad arkaysaa waxay la noqdeen yani siniin badan aan sugi karin markii dambe waxaa la yidhi meesha ka taga xabadan lagu kala eriyey
waa baxnay marka isbitaal madiinaan tagnay marka meeshaan ku ilaah tugi meydka arko bas sidaa marka meydkii meesha la keeneen ku arki maantana inta masjidkii waxaa waa xamar weyne oo jaamacadda xamar weynaa la yidhaahdaa waxaa ku jiro meydka haddaan rabnaa waxaa waay 9:00 barkii inaan ku dukano salaada janaasada masane inaan qaadno duugno aan jaziira geyno marka taas ayaana sugaysa bas ma jiraan yacni maxay ku dhinteen say u dhinteen qafaad weydin karto ama qafaad su'aal u geysan karto ma hayn marka saas awgiis ayaan carruurteenu qaadanay waan dhaqaynaa annagaa gacantaaynu ku duuganaynaa annagoo dadba sugaynin waxaa waaye gabadheeda aroosay ahayd hotelkaas iyonatee ninkeeda waxaa la kala yidhaahdaa farxiye cali cumar wiilkana waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan waxaa la yidhaahdaa fahad cabdiraxmaanaa la yidhaahdaa meeshay ku aroos galeen guurkooda meeshuu ka dhacay ayagoo isbuuc deggan isbuucii labaad 2 maalmood ay ka qaateen 9 maalmood 9kii maalmood marka geeridooda soo kormarta marka saas ayaa dhacday waxaan leeyahay lamaanahaas allaha u naxariisto waxa ay ahaayeen dad mustaqbal ka lahaa nolosha waxaa la sheegay in wiilku uu ka yimaaday wadanka Holland gabadhuna ay ku sugneed magaalada Muqdisho haddaba daawadayaal sidoo kale markaan waxaan idinla wadaagayaa muuqaalka laga soo duubay gudaha Hotel Afrique qolkii uu degnaa General Galaal oo laga duubay muuqaal iyadoo laga sheekeynayo qaabkii uu dagaalku halkaas ugu dhaxmaray isaga iyo dagaalyahanadii al-shabaab ee dilay halkan waa qolkii uu deganaa allaha u naxariistay General Galaal sariirtan waa firaashkan waa firaashkii uu ku jiifan jiray General Galaal ilaahay u naxariistay sidoo kale holodeennada hotelka waxay noo sheegeen in halkan ay isku qabteen jarnaalka iyo dadkii soo galay hotelka isla markaana halkan uu ku nafbaxay halkii ay ku dileenna ay halkan ahayd sidoo kale holodeennada hotelka waxay noo sheegeen in halkan ay tahay halkii jarnaalka ay kula dagaalameen dableydii soo gashay hotelka isla markaana laba ka mida uu halkan ku dilay ka hor inta uusan ku geeriyoonin goobta aan taaganahay isku soo wada duub qaraxan ayaa waxa uu ahaa mid naxdin leh dawladdu ilaa ay hadda qasaaraha rasmiga ah ma aysan sheegin haddaba daawadayaal waxaan leenahay dadkii halkaasi ku dhintay allaha u naxariisto sidoo kale waxa iga xasuusina in la soo saaray warqad digniin ah taas oo lagu sheegaya in 48 saacadood ee soo socoto ay magaalada Muqdisho ka dhici karaan qaraxyo dadkan waxaan leeyahay ha digtoonaadaan oo guryaha ayaan laga soo